qaar ka mid ah qurbadjooga gobolka saaxil oo iyagu ka soo kicitimay qaaradaha kala duwan ee dalalka Yurub ayaa kormeeray goobaha ay diiwaangelinta codbixiyayaashu ee gobolka saaxil ka socoto iyagoona intii ay kormeerkoodaasi ku guda jireen qaybinayay cunto bisil oo ay dadkaasi quutaan inta ay kuyuga codbixiyayaasha ku jiraan waxaana qurbajoogani oo toddobadii cisho ee ay diiwaangelintu ka socotay goobaha miyiga ee gobolka saaxil marayay jiidaha kala duwan ee ay diiwaangelintu ka socoto ayaa maalintii shalay oo ay diiwaangelintu gebagabo ahayd socdaalkoodii toddobada cisho ee ay ku kala bixinayeen goobahaasi ku gebagabeeyay goobaha degmada Mandheera iyo Bullaxaar sida tuulada Macaaneeya makhaayada inanta Dooxa Gubaan Kalqoray Geeri Gargaarka Bullaxaar Boodaale iyo kuwa kale oo aad u badan waana kuwan iyaga oo socdaalkoodaasi ka waramaya bismillaahir rahmaanir rahiim waa magacaygu Anis Cabdi gargaarka u fidinaysay dadkan diiwaangelinaya gobolka Saaxil goobtan imkaan ku suganahay waxa weyn meesha la maqaaxida inanta oo u dhaxaysa degmada Mandheera iyo degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Saaxil waxaanu halkan ayaamaanba ku qaybinaynay cunto raashina sidii aad hadeer arkayseen oo cunto bisil oo dadka maatida ah ee laga soo qaaday guryahoodii iyo xaafadahoodii ee kuyuga ku jiraya dhowr iyo 10 saacadood ayaanu ku tashanay inaan u qaybino cunto anagoo matalayna qurbajoog kastoo ay dunida daafeeda joogan amba gobolka Saaxil baa idhaado ayaan cunto bisil u qaybin sida imkana ugu dhawaajiyay waxaanu nahay qurbajoog adduunka ka yimi oo Saaxil gobolka Saaxil ah waxaana noo nimeeyay halkan gurmad ugu sameeyno ama aan taageerno dadka diiwaangelinta sameynaya taasoo dhibaato xoog la iyo abaaro iyo dhibaato ka haysta wadanka waxaanu u qaybsanay 3 qaybood oo qolo ay tagtay bariga marka geelo kor laga bilaabay ilaa iyo bariga qayb dhexe oo anigu aan kamid ahaa iyo Cali iyo Aniso iyaguna galbeedka Saaxil oo xeebta maray marka maanta oo halkan isugu nimi ayaa waxaan soo marnay imika tuulada Macaaneeya la ilaa oo dadka daawan doontaan hadii la ilaa sida kuyuga u haysteen iyo anaga qudheed wixii hawshay aan noo soo igmiteen oo aanu ka fulinayno ahayd cunto qaybsi khaarid baabuur aan waday imika waxaan joognaa makhaayada inanta hawsha si fiican bay loogu socotaa abaaro xoog la wadanka ka jira waxaan idin ka codsanay hadii aan qurbajoogtiin aad iyo ugu fiirsataan dadka dhibaatada halkan dadkan jooga halkan dhibaatada haysata oo abaaraha wixii laga soo caawin kara ka soo caawsan waxaan kamid ahay dadka u soo gudbay diiwaangelinta ee jariyada reer Saaxil qurbajooga waxa weeye socdaalkeygii noogu horreeyay waxaanu ka bilownay magaalada Berbera ilaa meesha degmada la yiraahdo Bullaxaar halka waxaan ku gaarnay ilaa halka ugu dambeysay sanduuqa uu yaalo Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Saaxil xuduudeeda ayaanu gaarnay oo la yiraahdo Quraco ilaa inta waxyaabaha aan soo aragnay inta barnaamijyo aan bixinay iyo meeshii aanu ku aragno in ay dayacantayba waxaan ku daboolayna ama dadaan ka gurro ama raashin aan ka siino xataa raashin aanu karnay gacantu karnay baa jira markaan dadka baahidoodii farabadan aragnay waxaan u sheegay hadaba waxa soo dhawaan wixii aanu qaban karnay wax la dabooli kara maaha lama wada dabooli karo waxaan u sheegay qurbajooga reer Saaxil ee dibadaha jooga nin wali oo reerkooda wax soo diro sababta waxa jirta baahi fara badan waxa jirta abaar fool xun hadda dhirtiya dadka aragto waad waxaan u adkaysan karnaa yaabayso saadinta waxaan leeyahay nin kastoo qurbajooga oo reer Saaxiilow dadkii wuxuu